الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. sidaa horeba walaalkay u sheegay, waxaa inagu soo dhow bishii Ramadaan qiimaha badnayd ilaahay uu ina siiyey ee ahayd fursadda cumriga. fursadaha ilaahay uu bixiyo addoomaha uu siiyo waa kuwa ugu muhiimsan ee cimrigeennu hore ugu dheeraanayo. bishaa iyada ah qiimaha iyo wanaagga ay leedahay daraaddeed ayuu nebigu tarxiib buu samayn jiray, tarxiib oo waa soo dhoweynayey ummadda uu jeclaysiinayay, sida uu tilmaamayay xadiidkii saxiixa ahaa min xadiidi abi hurayra: ataakum ramadaan shahrun mubaarak. waxaa idin yimi buu nebigu lahaa bishii ramadaan, waana bil barakaysan, ilaa aakhir alxadiid. bishaas iyadaa wuxuu nebigu u xusuusinayaa, barakadeedana dadka u xusuusinayaa inay u diyaar garoobaan. bishan iyada ah tarxiibkaa ka sakow, fawaa'idka ku jira waxaa ka mid a fiiha taskiya, waa bishaynu ku maydhayno nafteenna. wax waliba waxa uu leeyahay siyaabo loo maydho. ruuxda waxyaabaha lagu maydho waxaa ka mid a soomkaa lagu maydhaa, oo caafimaadkii jidhkuna wuu ku jiraa, caafimaadkii ruuxduna wuu ku jiraa. bishan waxaa ku jira tarbiya linnufuus, waa siyaabaha nafta loo carbiyo. oo naftu waxaynu ogsoonnahay marka ay had iyo jeer sooman tahay, qofku wuu edabsadaa, anshixumada iyo dhacdhacana wuu iska ilaaliyaa, qof dhowrsoonna wuu noqdaa. bishan iyada ah fiiha tawxiidun lisufuuf, bulshadeenna waxaa ugu sugan midnimo. muslimkuna waxyaabuhu aada ugu baahan yahay ayay ka mid tahay midnimadu. taraawiixdii baa lagu midoobayaa, soomkii baa lagu midoobayaa, afurkii baa lagu midoobayaa, iyo salaaddii iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan. marka aynu bishan qaabilayno, arrimo dhowrahoo aynu ku qaabilayno bishan, uguna diyaar garoobayno labaataneeye ah, ayaan dareerin doonaa insha allahu inta wakhtigu inoo saamaxo. arrimaha waxaa kow ka ah an nastaqbila binniyati alkhaalisati wasaalixa, an nastaqbil hada shahr binniyati saadiqa. waxaynu bishan ku qaabilaynaa niyad wanaagsan. qofku wixii ka hor yimaada, marna isagoo ka yabaalsan oo ka warwarsan buu qaabilaa, marna isagoo ku faraxsan oo laabta u sii daayey. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay kaba warwarsan yihiin bishan gaajadeeda iyo cibaadadeeda iyo culayskeeda. kadibna aad arkaysa dadka qaarkoodoo iyagoo taa ka dhuumanaya, maalintii oo dhan seexanaya, hurdo isku dhaafinaya. qofna waa qof og nicmada iyo deeqda iyo fursadda halkan ku jirto oo niyad wanaagsan oo farxad leh ayaa uu ku qaabilayaa. wuxuu leeyahay fursaddii ilaahay ku siiyey maantay kuu soo martae ka faa'iidayso. marka iimaanan waxtisaaban, innagoo rumaysan wuxuu ilaahay noo ballan qaaday, ilaahayna ajri ka sugayna subxaanahu wa tacaala, waxaynu qabanaynaba niyaddaa wanaagsan baynu ku qaabilaynaa. qofkuna camalkiisa kolba waa wuxuu niyoodo. midhka labaad aynu ku qaabilaynaa bishan waxa weeye alisticaanatu billaahi caza wajal calaa buluuqi shahri ramadaan almubaarak wa talabi alicaanati cala alcibaada. ilaahay baynu gargaarsanaynaa, awooddeenna un cuskan maynee waxaynu leenahay ilaahay ow deeqdaadaa nagu soo wajahaan, ilaahowna waafaji. hadday tahay soomka iyo hadday salaada tahay iyo hadday sadaqada tahay, ilaahay baynu baryaynaa inuu inoo sakhiro oo ina waafajiyo. midda saddexaad aynu bishan ku qaabilaynaa waxa weeye altasaamuxu waalcafw can innaasi qabla ibtidaa shahri ramadaan. ilaahay cafis baynu ka doonaynaa subxaanahu wa tacaala. cafiskiisaa si aynu u helo
waxaynu horraysiinaynaa cafiska dhexdeenna oo dadku had iyo jeer waynu ogsoonnahayoo wax badan baa inaga dhexeeya ama aynu isku khilaafnaa markaa qofku siyaabo ugu diyaargaroobayaa bay ka mid tahay inuu qof waliba ciddii ay wax ka dhexeeyeen uu idhaahdo hebelow anigu waan ku cafiyey adiguna ay cafi taa waxaa ku lamaan markaa inuu qofku aanu sii kororhsanin dembiye iyo gafaf kale sidaa daraaddeed waxaa loo yaqaano mushaaxanaadka iyo khusuumaadka iyo jidaalka yabtacid can daalik muranka iyo majaalista lagu hayo wuu ka durkayaa qofku dhibkiisii horuu la ildaraayo cafis u raadinaye ilaahayna cafis aynu weydiisanayne dadkana aynu lahayna cafiya mid kale ku biirin mayno arrintaasina waa ta saddexaad ta afraad waxaynu ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa ama aan idhaahna bishan aan ku qaabilaynaa altowbatu الnasuux والاstikfaaru والnadam calىa man qaضىa min الdunuub aw calىa man qaضىa min alcumr inaynu toobad keenno oo towbaddii waxaa ka mid ah dee bani aadamkii aynu cafiska weydiisanaynay wixii gafahaynu aynu ka gallay marka towbadda wanaagsane addoonku uu toobad keenayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha uu bishan qofku weelka ugu samaysanayo waxaynu badinaynaa bishan camallada wanaagsan ee kala duduwan ee aynu u diyaarka nahay waxaynu bishan ku dadaalaynaa oo ku qaabilaynaa inaynu u samafallo dadka xaqa inagu leh ee waalidku uu kow ka yahay waalidka ciddii waalidkiisu uu nool yahay wuxuu ku dadaali doonaa inuu u samafalo qofkii waalidkiisii dhintayna isaguna waxa uu leeyahay si loogu samafalo sida sharcigu ina baray sadaqo uu bixiyo isagoo in fara badan u duceeya dardaarankiisii fuliya dadkii uu jeclaa xidhiidhiya markaa samafalka waalidku waa camallada wanaagsanaynu bishan ugu diyaargaroobayno waxaynu ugu diyaargaroobaynaa raddu lxuquuqi ilaa asxaabiha min duyuunin wa amaanaat inaynu iska celinno wixii xuquuq aynu hayno dadka qaarkood waxay hayaan wax la ydhaha madaalim madaalimku waxa weeyaan xaq baa ku maqan oo dulmi bay sameeyeen markaa towbaddiisay qofka ka mid tahay inuu cid walba wuu garanayaa wixii uu qofku ka haya haddaanu isyeelyeelaynin inuu cid walba waxeedu u celiyo waxa uu hayaa hadduu yahay wax caama iyo haddii uu yahay wax khaasaba bisha siyaabahaynu ugu diyaargaroobayna waxaa ka mid a musaaxabatu alakhyaar aladiina yuciinuuna cala alcamali asaalix qofku inuu la saaxiibo oo uu la majaaliso oo uu la cibaadaysto oo uu ka agdhowaado dadka uu khayrka ku tuhmayo ee wanaagsan ee akhyaarta ah ee fiicfiican oo qofna udgoon iyo caraf baa ka soo baxaya marka aada la fadhido siduu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu la mid yahay qof cadar iibinayoo kale qofna waxaa laga yaabaa inay dhibbiilo ka duulayaan oo marka aada la fadhiisato dee wuxuu ka dhigan yahay qof shaqaynaya oo biratumayo dab shidayoo kale sidii uu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam markaa ha fudaysanin bisha ramadaan cidda aada la saaxiibayso ama aynu la saaxiibayno waa inuu noqdaa qof wanaagsan oo khayr aynu ka rajaynayno oo camal iyo cibaado fiican aynu ka arkayno bishan waxyaabaha aynu ku qaabilayno waxaa ka mid ah arrinta sideedaad taxari ru'yati hilaali ramadaan almubaarak qof waliba inuu iska xil saaro siduu bishan u eegi lahaa waayo cibaadooyinka faralka ah qof walba xil baa ka saaran inuu eego wakhtigiisa uu bilaabmayo salaada mu-adinkoo qura kuma halaynayna innaguna waynu eegaynaa wakhtiga salaada soomku wakhtigu bilaabmayaa baynu eegaynaa xajku wakhtigu bilaabmayaa baynu eegaynaa haddii qalad cid kale ka yimaado xaq baad u leedahay inaad aduguna saxdo markaa siyaabahaaynu ugu diyaargaroobayna waxaa ka mid a bishan biladkeeda inuu qof waliba eegiddeeda iyo tirinteeda uu iska xil saaro siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam inagu farayey bishan aragna ku sooma aragna ku afura cidduu la hadlayaa waa ummadda oo dhan bisha iyada ahi marka ay bilato waxyaabahaynu ku qaabilayna waxaa ka mid a ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixoo tirmidi ku sugan
ayaa nebigu waxa uu ahaa xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya rasuulku waxa uu ahaa idaa ra'a alhilaal bisha marka uu arka guud ahaanba wuxuu odhan jiray allaahu akbar allaahuma ahillahu calayna biاlamni waaliimaan ilaahay baa weyn allaahu akbar ilaahay baa weyn ilaahay ow bishani ay noogu bilataa nabadgeliyo iyo iimaan iyo nabadgelyo iyadoonu haysanno oo ilaahay ow aada nagu arsaaqday bishani ha noo bilato waasalaamati waalislaam iyo badbaado iyo islaamkay nabadgelya oo dhammi ku urursan tahaye islaamnimada wanaagsan annagoo ku toosan waatawfiiqi limaa tuxibu watardaa rabbunaa warabbuka allah iyo iyadoo ilaahay ow aadna waafajisay waxa aad jeceshahay ee aada raalliga ka tahay bishuu markaa nebigu la hadlayaa wuxuu leeyahy rabbunaa warabbuka allah shahri xagga ereyga innaga af soomaaliga marka la eego bil way dhadig tahay laakiin xagga carabiga marka la eego si erey lab sidii wax labbaa loola hadlayaa markaa wuxuu leeyahay bil yahay rabbigaaga iyo rabbiga iyagu waa isku mid dhammaanteen wada makhluuq baynu nahay waxaad adigu haysaa ma jiraya waxaad bedeli kartaa toona marka ducadaasi waxyaabahaynu bishaa ku qaabilayno ayay ka mid tahay siyaabahaynu bishan u qaabilayno waxaa ka mida inaynaan ka horraysiinin innagoo isla dadaala maalin in la soomo ama 2 maalmood oo laga yaabo inay u dambeeyaan bishii shacbaan si kale haddaynu u dhigno maalmaha loo yaqaano ayaamu shaki bishaa shacbaan soddonka ay tahay ee la leeyahay ma soddonkii shacbaan baa mise waa kowdii ramadaan mar haddii la shakisan yahay oo wax yaqiin ah aan la haynin in iyadana soomkaa lagu qaabilo laga horraysiiyo rasuulullaahi maxamed wuu diiday sala allahu calayhi wasalam sida uu tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ee abi hureyra uu warinaya allaha ka raali noqdo nebigu wuxuu uhi laa taqadamuu ramadaan biyowmin aw yowmayni ilaa man kaana yasuumu sawman falyasumhu bishaa ramadaan ha kala horeynina maalin inaad soontaan ama 2 maalmood ilaa qof caadadiisu ay ahayd inuu soomka soo waday mooyaane oo qofka sida caadigaa u soo soomi jiray shacbaan ayaamihii u dambeeyeyna soo soomayey hadday soomkaa isagoo wada ramadaanna ay ugu soo gasho dhib ma laha kaasi kii loo diidayna maaha marka waxyaabaaynu ku qaabilayna waxaa ka mida innaga oo sharciga raacayna inaynaan is odhanin dadaalo oo ayaamaha loo yaqaano ayaamu shakiga ama yowmu shakiga inaynaan soomin waxyaaba aynu bishan ku qaabilayna ama ku soo dhowaanayna waxaa ka mida wadcu jadwal aw barnaamij liistiqlaali اlwaqti fii ramadaan wa taxdiidi اlawlowiyaat inuu qofku samaysto barnaamij uu ku socdo qofka muslimkaa xayaatadiisu cashwaa'i ma aha qof iska dhacdhaca oo noloshiisu aanay habaysnayn cibaadooyinkan dhammaantood waxay noo sheegayaan inay nolosheennu habaysnaato oo 5 jeer baa ilaahay uu noo jideeyey inaynu salaaddii tukanno usbuucii aynu jimcadii la nimaadno cibaadooyinku markaad si guud u eegto mid yowmiya mid maalintii soo noqnoqonaysa iyo mid usbuuciya iyo mid sanadkiia waxaasoo dhan waxay kuu sheegayaan noloshaadu inay habaysan tahay markaa si aynu uga faa'iidaysanno wakhtiga qaaliga ah ee bishan waxaad leedahay intaasoo jeer qur-aanka akhri intaasoo cashare ah faa'iidayso intaa danaha caamkaa ka qayb qaado intaa cibaadada la kaalay intaa soo shaqayso intaa nafta u raaxee barnaamij sidaasa ayaa qofku uu dhiganayaao aan ka kala go-in waxaynu markaa iska ilaalinaynaa inaynu ku talax tagno ama aynu badsanno waxa loo yaqaano mubaaxaadka waxa weeye hurdada badan iyo hadalka badan iyo soo jeedka badan tiifiyada la daawado mashaakilka dadkii muslimiinta ah haystaa waxaa ka mid a inay u fahmeenba inay tahay bishii raaxada markaasaa dad badan waxay diyaarsanayaan musalsalaad habeenkii aada loo daawado iyo in habeenkii aada loo dhergo iyo in aada loo seexdo qasadkii iyo ujeeddadii iyo xigmaddii iyo sirtii bishan laga lahaa maaha taas ee waa bishii la carbin lahaa ee la layli lahaa nafta ee shidaalkii sanadka ay ku shaqayn lahaydna lagu shubi lahaa bishan waxaynu ku qaabilaynaa
inaynu ducooyinka aynu ilaahay ku baryayna subxaanahu wa tacaala sii baranno aynu qaybno oo waxaa la yidhi hadalkana la kala odhan og ilaahayna la kala baryi og weey markaa siyaabaha aada ilaahay ku baryi ogaanayso ee baryadaadu ay ku wanaagsanaanayso waxaa ka mid ah inaynu ku dadaalno ducadu inoo jideeyey nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ducooyinka qur-aanka ku sugan iyo ducooyinka ku sugan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam sir gaara bay xambaarsan yihiin sir gaara ayay xambaarsan yihiin marka in lagu ducaysto kuwa aada qaybto aada ku celceliso waa dhaqankii ay samayn jireen dadkeennii saalixiinta ahaa ee wan wanaagsanaa bishan iyada ah waxaynu ku dadaali doonaa taqdiim camal ijtimaaci camaladeennu inay u badnaadaan iskaashi oo xidhiidhkii ilaahayna waynu wanaajinaynaa xidhiidhkii dadka muslimiinta ana waa wanaajinaynaa labadaa marka uu qofkii wanaajiyo sacaadu helayaa taa isagoo dhiirinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix oo cabdilaahi bni cumar uu warinaya waxa uu ku yidhi axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay qofka bulshadiisa u waxtar badan wa axabu alacmaali ila allaahi caza wajalla suruurun tudkhiluhu calaa muslim camaladana ilaahay wuxuu ugu jecel yahay camalka aad kaga farxinayso qofka walaalkaaga ee muslimka ah aw takshifu canhu kurbaad maalan ka dulqaadaysa qofkii diiqad buu ku sugan yahay dayn buu la ceerceerayaa duruuf adag baa haysata inaad kurbadaa ka dulqaaddo ama aada gaajo ka eridood ka reebta buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay addoonka uu raali kaga noqonayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inaan masaajidkaygan bil ictikaafsanaado oon cibaadada ictikaafka u fadhiyo waxa aan ka jecelahay in aan qofka muslimka ah u socdo waxtarkiisa inaan u socdo ayaan ka jecelahay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam bishan waxyaabaha aynu ku soo dhoweynayna waxaa ka mid a silatu raxim dadka qaraabada qof waliba qaraabuu leeyahay inuu xidhiidhiyo dadka qaraabadaa waxaa lagu xidhiidhinayaa inaynu sakadii faralka ahayd siino tu kaloo sadaqo ah siino xaqal ciidkii siino afurkii siino waxaynu ku xidhiidhinaynaa inaynu diinta ilaahay ugu baaqna iyo cibaadada siday u soomi lahaayeen ay u salaadi lahaayeen ay baadilka iyo gardarrada iyo xaqdarrada isaga dayn lahaayeen oo sidaa aynu dunyada ugu fidinayno ayaynu diintana ugu fidinaynaa inaynu xidhiidhkooda wanaajinno alaqrabuuna awlaa bilmacruuf baa la yidhi dadka ku-xigaa iyagaa macruufka iyo samafalka ugu owlo ah taana waxa ay ka mid tahay cibaadooyinka aynu bishan ku qaabilayno bishan waxyaabaha aynu ku soo dhoweynayna waxaa ka mid a inaynu wanaajinno xaquljaar xaqa uu jaarku leeyahay qaraabada labaad weeye jaarku oo qofka muslimka ah ee kula jaarka ah oodii ab ka dhow ehelkaagu ku tirsan yahay wax allo wixii duruufa haysta oo inaad kala qayb qaadata saad uga fujin lahayd siduu isaguba diyaarka kuugu yahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay malagii jibriil la odhan jiray wuxuu aada ugu celcelinayay inuu ii dardaarmo jaarka xataa danantu annahu sayuwarihu jeeroo aan u maleeyeyba inuu dhaxalka wax ka siinayo heerka uu ku celcelinayey marka jaarkeennu waa inuu noqdaa kii jannada isu raaci lahaa ee aanu noqonin kii jahannamo u shiraaqan lahaa xaggeeda hadday yihiin dad iswada laynayo colaadi ay ka dhaxayso oo midaba midka kala xamanayo nuqsaan weeye idan markaa waxyaabaha aynu bishan ku dadaalayno waxaa ka mid a ka farxinta guryaha inagu dhowdhow waa inaynaan geydhka iyo albaabka weyn ka soo xidhanine qof walba halkiisa oo duruufaysan lagaga warhayo bishan waxyaabaha aynu ugu diyaargaroobayna waxaa ka mid a salaatu taraawiix salaaddii qiimaha badnayd ee ruuxda loogu raaxaynayey ee taraawiixda la odhan jiray inaynu gudanno oo aynu ku dadaalno iyada oo cibaadadaasi shacaa'irka ay ka mid tahay diiniga ah diintu inay oogan tahay ramadaanna dhexdeeda la dadaalayo ayay sheegaysaa kol haddii taraawiixda ah loo tukanayo sidii ay u tukan jireen saxaabadii nebigu bishan waxyaabaha aynu ku qaabilayna waxaa ka mid a xamla inaynu qaadno dadaallo ka imanaya xagga masaajidada
oo dadku had iyo jeer bishan masaajidada iyo meelaha khayr kale bay ka agdhowiinee ku ururaan marka fikradaha la soo jeedinaya la odhanayaa maxaynu iska kaashanaa maxaa bulshadeennu u baahan tahay xamladaha waxaa ka mid a masaajidada hagaajintooda maadaama dadkii ay u badan yihiin masaajidada maray ku cibaadaysanayaan maray ku afurayaan maray qur-aanka ku akhriyayaan maray cilmigii ku qaadanayaan marka masjidkii waa in lagula dadaalaa takyiif iyo tandiif iyo tadyiib takyiifka waa qaboojin meelaha qaarkood baa dhulkaynu ku noolahay kulul marka cibaadadii waxaa la raaxaysan karayaa haddii masjidkii uu yahay mid qabow waxaa la raaxaysan karayaa haddii masaajidkii la nadiifiyo haddii la udgooneeyo nebigaana ina faray calayhi salaatu wasalaam siday caaisha tilmaamayso wuxuu rasuulku na faray masaajidada inaanu nadiifinno oo aanu udgoonayno oo aanu xaafadaha ku badinno waxaynu ku dadaali doonaa inaynu tasyiin ku samayno deegaankeenna maadaama hadda ay soo biireen cudurro laga cabanayo iyo caafimaad darro timid oo ka iman kara uskaga iyo wasakhda waa in lagu dadaalaa shaarica in la nadiifiyo oo kudaafadda aan la dugsanin iimaankaanay ka mid tahay siduu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam iimaanku waa qayba buuhi oo waxa u sarreeya towxiidka waxaana u hooseeya imaadatu ladaa can iariiq waddadoo laga qaado wixii wasakha ee dadka muslimiintaa dhibaya meel kastay joogaanba debadiyo gudaba qofka muslimkaa deegaankiisa dharkiisa gurigiisa shaariciisa eeriyadu ku nool yahay waa mid nadiifinaya marka waxyaabaha aynu iska kaashanayno ayay ka mid tahay xamladaha aynu qaadayno waxaa ka mid ah xamla elektroniya qalabkan casriga tiknolojiyada inaynu ka faa'iidaysanno oo dadka saaxiibada ah ee facebooka ku saaxiibka ah ama whatsappka ku saaxiibka ah baraha bulshada qaybahooda kala duwan inay ku ballamaan adugu intaasoo qof waxgaadhsii adugu intaasoo xadiis faafi intaasoo wacdi faafi iskaashiga noocaas iyo xamladaa la qaadayaa waa mid aynu u niyoonayno inaynu ummadda ku soo hanuuninno waxa wanaagsan iyo khayrka culimmadu baahinayaan iyo ahludiinkana aynu sii gaadhsiinno si ilaahay miisaanka xasanaadka inoogu saaro nebigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa isagoo cali bna abi aalib ku halqabsanaya laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam geela cascas waxa kaaga fiican qof qura inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo waxaynu arkaynaa baraha bulshada inay howl badani ka socoto oo dadka qaarkood ay isku caayayaan qaarkood dadka ku xaqirayaan qaarkood isqaawinayaan waxaasoo dhan bisha rabadaan iyo mar walba waa ilaahay baynu uga toobad keenaynaa marka dhinaca khayrka leh inaynu tabarteennaa u jahayno ayaynu isku dayaynaa xamladaha iyo abaabulka aynu iska kaashanayno waxaa ka mid a xamlatu tacaam bulshada baahan inaynu raashino ururinno afur jamaaciya u samayno oo aynu iskaashanno nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay qofku hadduu qof sooman afuriyo ajrigii uu kaasi ka helay soomkiisa in la eg buu isaguna helayaa marka haddaad 10 qof afuriso ajrigay soomkii ka heleen baad heli masaakiintii dhinac baa loo siinayaa iyo fuqaradii dadka soomanna maalba ha haystaane shardi maaha inuu faqiir iyo qofka soomani xadiidka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka afuriye qof xoolaba ha haysto marka dadka walaalaha isu yimid qofba wuxuu ku dadaalayaa saaxiibkiisa kale inuu kala horeeyo gacanta afurinta si ajrigii soomka uu ka helay in la eg adiguna aad u heli karto saa daraaddeed dad badan baa jiro maalqabeena marka qofku waa inuu ku xisaabtamaa intee in la eg baad sanadkan bajad u baaskaraysaa dadkii aad afurin lahayd xamladaha iyo iskaashiga aynu had iyo jeer iska kaashanayna waxaa ka mid a xamlatu ziyaarati almarda dadka buka inaynu booqanno dee cudurrada haya dadka way kala duwan yihiin cudurkan la kala qaadayo ee iminka la leeyahay qofka yaan la booqanin dad badan oo kalean kaa u jiifin xanuuno kale u jiifa ama dadka waalan ama naafada ah ama sidooda isaga xanuunsanaya la booqan karo waa in la booqdaa ee ehel leh asxaab leh oo ummadda islaamka leh nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo xuso xadiisulqudsi uu inoogu sheegay maalinta qiyaamaha waxyaabaha ilaahay uu qofka ku qabsan doono inay ka mid tahay arrinta noocan oo kale ahi ilaahay baa xadiisulqudsi wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaya qofkii bani aadamka ahaa ina bani aadama marirtu falam tacudnii waan bukooday imaad soo booqanin markaa qofkii wuxuu leeyahy ilaahayow
adigaaba dadkoo dhan iska lehe sideebaad u bukootay wuxuu idhi miyaanaad ogeyn addoonkaygii hebel inuu bukooday oo aanad soo booqanin haddaad soo booqan lahayd waxaad iga heli lahayd agtiisa ayaa ilaahay uu ku yidhi ina bani aadamo waxaan kaa doonay dacaam iyo raashin waxba imaad siinin buu lahayd oo imaad quudinin addoonkiibaa ilaahay aakhiro su-aalahan uu hordhigaya ilaahay oo adiga oo rabbulcaalamiin oo cid walba iska leh sidee baan raashin kuu siiyaa buu leeyahy amaa calimta annahu istadcamaka cabdi fulaan falam tudcimhu addoonkaygii hebel sowkii raashinku weydiistay iyo wuxuu cuno manaad siinin haddii aad markaa siin lahayd waxaad ka heli lahayd waxa aad bixisay agtayda biyihiina waa saas oo kale marka arrintaasi waxay xadiidkaasi muslim uu ku sugan yaho waa saxiix waxay tilmaamaysaa in su-aali ay naga iman doonto dadka wax aynu tari kari lahayn aynu ka gaabinay idan markaa dadkaa bukaanka ah waa in laga farxiyaa waxaa qalciidkii la siiyaa dhar iyo dhuuniba halkooda lagu booqdaa ay gartaan ehel iyo asxaab u heelan inay leeyihiin markaa ducadoodaynu ku meel maraynaa wax badanna aynu ku faa'iidaysan karaynaa guud ahaan markaynu soo ururino si tafaasiila baynu u sheegnaa camallada ayna sugayayna bishan ugu diyaargaroobayne waxaynu ku soo gebagabaynaynaa aayaddaa ilaahay uhi wafii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun waxaasoo dhanna diinteennu aynugu dhiirigelisay waa shayga aynu bishanna ku qaabilayna sahay qaadanayne kaas camalka noocaasa ha u tartameen buu ilaahay yidhi dadka tartamaya waa tartan ay gelayaan awliyada ilaahay iyo dadka axbaabtaha khayrka isku jecel ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sawaabka ina waafajiyo cibaadadan bishanna kuwii jaaniskaa ka faa'idaystay ilaahay uu naga dhigo waxaana muhiima inaynu isu soo ducayno markuu mid waliba walaalkiisa kale u duceeyo malag baa adigana kuu ducaynaya aamiin walaka bimil intaa aada ugu ducaysay allaha kaa aqbalo adiguna intaa in leeg baad leedahay buu leeyahay malagu marka waxaynu ku faraxsannahay bishan inay noo iman doonto waxaynu ilaahayna ka baryaynaa dhibaatooyinka ummadda haysta inuu ka dulqaado quluubtoodana uu isu jeediyo cibaadada iyo camalkana uu inaga aqbalo jazaakum allahu khayra wabaaraka allahu fiikum وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.